caasimada Soomaaliya maanta shalay siday ahayd ma 3 sano qorsheed ma 3 sano oo la soo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay inagoo u jeednay gacmaheena dad ku celiyaan laakiin ma yeelaayo qof laga yeelaya ma jiro 3 sano ee la soo dhaafay magaalada nabad muuqato oo la taaban karo oo aan sacabaha la saari karin ayay gaartay alxamdulillah gaari walxaa qaraxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhuftay qaraxa markuu dhacay kadib waxa gudaha u galay hoteelka kooxo hubaysan qaraxani waxa uu dhacay iyadoo goobtan ay aad u mashquul badan tahay marka loo eego xilliyada la fariisto shalayto ay gacanka xaq daran ay ku dishay isgooska ceelasha biyaha banaankii aa lagu soo bursaday wiilkayga masaajidka ka soo baxay masaajidka nafo guriga la gudbay halkaas oo ku wareer halkaas banaanka qaylan ka maqalnay qaylada banaanka ka maqlaadin u baxnay gabadheeday noqotay hadeen fal carnana tooro ku taagan arkay rasaastii urida askarigii ku libisnaa dareeska dawladda ayaa galaafatay nolosha hooyo ubax iyo sabigii caloosha ay ku waday inaan xaq walaalkayga aan ku dhiibnay inaan askaraad dishay 5 shilin iyo $1 waxaa loo dilay 10,000 ilaa 11,000 shilin Soomaali loo dilay caasimada muqdisho waxa ay ku jirtay xaalad cakiran oo isugu jirtay amni darro baahsan iyo qaraxyo joogto ah kooxo burcad ah oo dhac u geysanaya dadka shacabka ah dilal joogto ah oo ay la kulmayeen dhalinyarada ku shaqaysata bajaajta gaadiid hub culus saaran yahay oo iska furan rasaas taas oo khatar ku ahayd nolosha dadka maanduuriyaha iyo daroogada culus oo si tirabeela u soo gelaya magaalada ciyaal weero dhib ba'an ku hayay bulshada caasimada iyo hareeraheeda falalka anshaxa lidiga ku ah oo si weyn ugu sii fidaya magaalada waxaa qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir hogaaminayay Allah u naxariiste General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo ahaa taliye geesi ah xilligaas caasimada Muqdisho waxay ku jirtay xaalad kacsan oo amni darradu waa ay sii kordhaysay General Qaroole waxa uu naf iyo waqtiba u hurayay sidii uu xasilin lahaa magaalada isaga oo ku howlan xalinta xaaladaha cakiran iyo ka hortagga khataraha amniga ayuu ku shahiiday duleedka Muqdisho geeridiisa waxa ay murugo weyn ku reebtay shacabka Muqdisho iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed 2 toddobaad kadib geerida jananka madaxda sare ee dalka iyo taliska booliiska waxay hoggaanka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir u magacaabeen gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin oo loo arkayay in uu yahay shakhsi karti geesinimo iyo waayo aragnimo u leh in uu caasimada ka saari karo xaaladda cakiran ee ay ku jirtay taliye Macalin Mahdi markii uu xilka qabtay waxa uu ballan qaaday in uu wax ka bedeli doono xaaladda amniga caasimada waxa uu si dhow ula shaqeeyay laamaha kala duwan ee amniga isagoo xoojiyay wada shaqaynta guud ee ka dhaxaysa hay'adaha amniga Muqdisho si xaaladda magaalada loo dejiyo loona xaqiijiyo nabadgelyada hadafkiisa waxa hormuud u ahaa in shacabka la dareensiiyo in booliisku yahay daryeelo u taagan har iyo habeen difaaca nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed aqbali mayno inaad ka ganacsataan oo xashiish inta beertaan hub ku gadataan sargaalkii ciyaal weero dambi gale ee saldhig buli ka sii daaya waxaan hortiina ka sheegaa inaan ummadda Soomaaliyeed hor wareejiyo taliyaha booliiska gobolka Banaadir gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin ayaa si adag uga hadlay qolqolka hubka caasimada magaalada Muqdisho waxa uu amaro in digniin cad uu ka soo saaray in aan marnaba lagu dhaxwadan karin hubka culus gudaha magaalada mas'uulkii inta beeka iyo dhashiika asagoo wata inta la joojiyo xabad bilaabana askariga la soo xiray ma qoraga wata waxa la soo xiray qofka mas'uulka ee waardiyeynayana loo haystaa bajaaj la damba qoray lagu qabtay iyo waa la digana la maqlin qofkii qalad gala waa la qabtay taliyaha booliiska gobolka Banaadir gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin ayaa sheegay in talaabo laga qaadi doono dadka baraha bulshada ku soo gudbiya muuqaalada ka soo horjeeda anshaxa iyo kuwa baraha bulshada ka aflagaadeeya dadka taliyaha wuxuu sheegay in cid kasta oo falalkaasi ku lug yeelata sharci la horgeyn doono si loo dhowro sharafta iyo anshaxa bulshada inta u xun inaan ka qabanan u shaqeynaa cid laga yeelayo ma jirto inuu qof inta meel soo istaago oo maqaayad fadhiisto oo media tago oo aflagaadeeyo oo nabad galo waxaan ka shaqeynaa dadka inta xun inaan ka qabano waxa batay howlgal ayadoo la galay in dadka inta meel la isku keeno xurriyadda laga qaado in meediyaha iyo warbaahinta laga sii daayo qofkan muwaadinka asagoon dambi lagu haynin inta meel la keeno xurriyadda laga qaado la sawiro la isku sawiro meediyaha laga sii daayo waa dambi wallaahi wa billaahi wa tallah inaan la aqbalin sargaal inta 5 kiiloomitir
5 kilomitir isku meer 1 kilomitir inta la siiyay oo column loo buuxiyay intuu seexdo layac inta ku dhacdo oo inta seexdo ciidan ku shaqayn waayay report keeni waayay ee la dhahoobiya la tuuray subaxina daalaq inta yiraahdo in uu yiraahdo sargaalan si ah lagama yeelaa sam maxkamad geeyna maxaa yeelay caasimadii dhan oo dhib ku tahay gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin waxa uu cadeeyay sida hogaamin dhab ah oo leh aragti fog ay u bedeli karto xaaladaha adag meeshaan shaah ku karsadaa ilaa 9 saac iridaba maxar waa ay furunta abnigeeda ma sha Allah gidigowgeenan hadda inta jooga ilaa 7 saac ku gaarnaa inta baashaal wax aan aragno oo hadda nabad aan ahayn ma jirto 7 saac 8 saac naago 8 saac iska socdaa habeen ma arki jirin yaanyuuro hatta lama arki jirin markan alxamdulillah hadda bashbashin barwaaqana alweeradii oo haddii ilaahay ilmaayahu deegaanka aan ka joogi weynay oo guryahan laga jabshay aniga hadda guriga kayaa 2 maran dhisay wax ii yimid oo kale ma jiraan ciyaal weerahay wadadayda isku qabsan jireen dhibaato badan aan ka marnay haddii ilaahay ilmaaya wax ciyaal weeraya wax jidroogana anuu ma arki waayaha ani markaa leedahay qaaraan leedahay qofkaas waa iska fasixi jiray sababtoo ah fasaxa awaa aqoonis darro ma ahan amni darro ee haddana 9 saac habeen maday tahay waa aada xaawo casir meeshay takarta daawa wadi jir suuqa awal ma dhaafi jirin anoo aqaanana ma dhaafi jirin haddana meeshii oo kaaraan meesha haba noqoto madiina kaawguday meesheena kala ha noqoto meeshii ay noqoto waa aada amniga seefa laga dhigi seef waaye weligay xaawo casir 6 saac weyn ma aadin kaaraan ma aadi jirin 1 saac weynimo ya jumhuuriya ma aadi jirin anaa badignaa u faantay maanta boqolkiiba alxamdulillah waa amniga seef waa u faantay dhibaato kasta dhici jirtay oo la soo qaban jirin maanta waxa way gacan lagu soo qabano dhab macallin Mahdi waxa leenahay salaan sare aad ma santaa in kasta ugu shaqaysay wajaajileena oo maciishay garabkaaga Allah kala maanta magaalada Muqdisho aan kara boqolkiiba boqol waa amnigeeda waxaan aad ugu mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sukow madaxda Soomaaliya yaani qaasatan macallin Mahdi iyo intii yaani la shaqeysay gudoomiyaalka magaalada wallahi meelaha qaar aan la aadi jirin kaaraan iyo maxaa la ii sheegay fagax iyo maalin cadeeno habeenkii maalintii xabees dhaamin aad iyo aad anagoo dhalinyarta Soomaali ah ama ku shaqeysanaysa bajaajta waxaan dhihi lahaa wallahi amnigeeda maanta waxaan dhihi lahaa boqolkiiba boqol weeye waxaa ariga ka buuxi jiray dad allamo qoragora iska macawsada isaga sito oo ku dhacayo islaamanka jidka jooga dhacayo waxaas waa laga suula hogaamin daacad ah iyo iskaashi joogto ah ayaa suurtageliyey in caasimadda loo abuuro jawi amni oo horumar u horseeda bulshada oo dhan waxaa jirta ciidamo oo marka aad kan aragto emergency u baahato aan wacanaysaa jirto manaynen markaa wacdo isla markii inkay degmada ay abuuray ka soo amraysaa booliiska uu kula taagan yahay